Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan oo xiiso leh. Maanta waxaan ka hadlaynaa qisaan ka hadlaynaa. Qisada aan ka hadli doono waa mid qalbigaaga taabanaysa. Marka isku day inaad daawatid muuqaalka ilaa dhammaadka. Qisadan waa qiso dhex martay hooyo iyo labadeed wiil, waxayna ku bilaabanaysaa sida tan. Haweeney ayaa waxaa ka dhintay ninkeedii, wuxuuna ugu tagay 2 carruur ah oo yaryar. Waxayna kalkaaliso caafimaad ka ahayd mid ka mid ah goobaha caafimaadka oo ku yaala magaaladaasi. Waxayna waqti badan ku bixisay barbaarinta carruurteeda iyo waxbaridooda. Ilaa 2 carruur midka weynaa uu ka qalin jebiyey jaamacadda, halka midka yaraa uu kulliyadda ka gaaray sanadka 3aad. Intay ku guda jirto geedida dhisidda mustaqbalka carruurteeda, waxay ku qasbanaatay inay reehan dhigto. Reehantaasoo ah waraaqaha gurigeeda, ayadoonan u sheegin qof aan ka ahayn wiilka weynaa oo u baxay safar shaqo, oona u sheegay inuu soo celin doono gurigooda. 2 sano oo shaqo ah kadib, wiilka weynaa uu soo celiyay gurigoodii reehanta loo haystay. Si ay u abaalmariso wiilkeeda, waxay go'aan ku gaartay inay ku qorto lahaanshaha guriga, ayadoonan wargelinin wiilka yaraa oo markaasi dhameeyay kuliyaddii waxbarashada. Wuxuuna guursaday gabadh aad u qurux badan, balse kuma casuumin hooyadii arooska, kumana wargelinin inuu aroos galayo, waayo wuxuu ahaa wiil caasi ku ah hooyadii. Muddo yar kadib, maamadii waxaa ku dhacay cudurka macaanka ah, marka taasoo u baahatay in la daryeelo, oo awoodi waysay inay aado shaqadii oo noqotay guri joogto. Balse waxaa dhibsatay naagta uu qabay wiilka yaraa. Waxay go'aan ku gaareen inay iska fogeeyaan hooyadii oo iskaga fogeeyaan qolka cuntada lagu kaydiyo. Maamadii ayaa u adkaysan waysay xaaladda qallafsan oo ku dhacday inuu xaaladdan wax ka bedelo, laakiin wuxuu ugu jawaabay si naxariis darre ah, wuxuuna ku dhahay, ma ku hayo meel aan ahayn stoorkaas, waa meesha raashinka lagu xareeyo. Maamadii jiiraankeeda ayaa maqashay oo tiri, anaa ku caawinayo oo qol fiican ku diyaarinayo. Laakiin wiilka wuxuu ugu hanjabay inuu dili doono haddii arrintaas suubiso. Sidaa darteed, maamadii iyadoo u baqaysa jiiraankii, waxay ku soo laabatay guriga. Isla markay ku soo laabatay xaafadda, wuxuu u geeyay meelaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah. Markaasuu xiriirka u jaray 3 bilood. Markay ku jirto muddo 3 bilood ah, way warka waysay wiilka yaraa iyo wacday kii lacagta lahaa, kaasoo u soo diray lacag ay guri ku gadatay. Markaas guri ay gadatay way degtay. Waxay u sheegtay kuwa waayeelada meesha lagu xanaaneeyo haddeed soo wac wiilka yaraa oo caasiga ah, inay u sheegaan inay dhimatay hooyadiis. 3 bilood kadib, waxaa imaaday wiilka weynaa, kaasoo marka si toos u tagay guriga oo ku dhahay wiilka yaraa iyo islaantiisa guri iskaga baxa si toos ah. Markuu ku calaacalay jilbaha uu qabsaday, wuxuu yidhi, hooyadaan ogeyn inay saas tahay, waxaa waa hooyo ku caasiseen. Haddana maalinkay dhimatay, hooyo waan maqlay, waxaas yidhi islaanta waan furi lahaa, iyadaa dhibaatadan kulli ii horseeday, laakiin aan qalad galay haddaan ogaaday, ayuu yidhi. Sidaa darteed, maamadii marka loo sheegay way cafisay, maadaama uu qirtay qaladkiisa. Markaas kadib, maamadii waxaa loo sheegay inay nooshahay, marka dib uu ula midoobay. Maamadii asaga iyo islaantiisa kulli waxay ka dhuunkadeen lugaha, wejiga, jilbaha, meel walba ay ka dhuunkadeen. Sidaas marka waa ku midoobeen. Halkan waxaan ka baran karnaa waalidka weligaa wax walbo oo hataa uu kugu suubiyo weligaa waalidkaada ha xumaysan say wax u dhacaan. Marka dadkanay wax asagoo adoo yar oo waxba aan qabsan karin nin rag lagaa soo dhigaya, markaas kadib haddana ku caasinaysa waalidkaada. Waxaas waa wallaahi dadka waa la kala adagi. Marka waxaan idin leeyahay waalidkiina baaru noqdo insha Allah. Qisadeenina intaan ay ku eg tahay. Marka qaybta commentiga inoo reeb waxaad qabtiin insha Allah, wax su'aalo qabtiin. Wararka qiso nala soo wadaagaysiin xagga Facebook nala soo wadaagaysiin insha Allah.